$10,000 waa ugu doon gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeete Cusmaan oo ay weeliyaan xildhibaan Maxamed Cabdul Qaadir Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Hiirshabelle ayaa goob fagaaraha isagoo fulinaya balqaadkii ahaa in qofkii soo dilay mid kamid ah argagixisada al-shabaab oo ugaarsada uu heli doono abaalmarin lacageed ayaa goob fagaaraha lacag dhan $10,000 kula wareejiyay askarigii fuliyay howlgalkii qorshaysnaa ee lagu dilay laba dhagar qabe kuwaas oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab qof kasto shaqeeya abaalmarin uu leeyahay qofkii si xun u shaqeeyana cinqaab uu leeyahay qofkii wax fiican qabtaana birimiyo uu leeyahay iyo dalacaad annaga waxa aan hor u ballan qaadnay ama aan ka hadalnay may ahayn inaan qof dulminayne cadawga in la dabar jarana waa rabnay qofkii wax wanaagsan ka shaqeeya in la birimiyaareeyay ujeedadu intaas ay aniga iyo shabaab oo dagaal isla ba'anina dhaxmaray abaal baan u hayaa cid kastoo tilaabta qaad waxaan rabaa lacagtani waa laba nin ku soo ma lacagtani $10,000 waay waxa la ii sheegay ciidankani inuu ka tirsan yahay guutada shanaad ururka 39aad waxa dhinacayga taagan taliye xigeenka ururka 39aad Master Faarax $10,000 waa ugu doon gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeete Cusmaan ayaa ugu baaqay in cid walba oo ugaartay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay heli doonto abaalmarin gudoomiyaha Cali Jeete ayaa bogaadiyay askarigii fuliyay howlgalkaas isoo kala geesnimada ay muujiyeen ciidanka dawladda oo garab ka helaya dadka deegaanka inta faa'iido ku soo aroortay sida culimadu ay noo sheegtay aakhira janna lagu galayaa oo diinta islaamku qabto cadow ka hara waaya oo waa shidada ummadda Soomaaliyeed dhiigooda caadeysto fayraska in la suuliyo la rabo oo kugu soo duusho meeshii ummadda Soomaaliyeed ka yimaadeen yaa garanay meel ka yimaadeen faa'iidada labaad oo saddexaad oo ku jirtaana waa in qofkii dhididkiisii la siiyo gudoomiyaha ayaa xusay in la sii wado ugaarsiga al-shabaab oo madaxa laga soo wada gooyo si loo cirib tiro argagixisada nafla caariga ah maadaama aysan dagaal toos ah la gali karin ciidanka dawladda iyo soo kale dadka deegaanka